السلام عليكم أخيارتا ميل والبا جوجتان كسو دوادا sheekadii xiisaha lahayd oo aan xilligan oo kale idin soo gudbin jirnay qaybtii hore sheekada waxa ay noo maraysay Sahra waxay socotay iyadoo kaligeed ah waxay si hoose u tiri qalbigaygu wuxuu rabaa Cabdiraxmaan laakiin noloshaydu waxay iga doonaysaa wax kale dhanka kale Cabdiraxmaan wuxuu istaagay ma joojin doono ilaa aan ka helo kuna soo dhawaada qaybtii lixaad ee sheekadii xiisaha lahayd qalbi jabay season 1 subax culus subaxdii ayaa timid laakiin Sahra ma aysan seexan habeenkii oo dhan waxay fadhiday sariirteeda iyadoo indhaheedu casaadeen wax walba way isku dhex yaaceen ayay si hoose u tiri taleefankeeda ayay eegtay fariin ka timid Cabdiraxmaan fadlan ila hadal waan ka walwalsanahay Sahra way akhriday laakiin kama jawaabin season 2 Cabdiraxmaan oo sugaya Cabdiraxmaan wuxuu joogay meel uu kaligiis ku sugan yahay wuxuu eegayay taleefankiisa markasta maxay ii jawaabi weyday ayuu yiri qalbigiisa wuxuu dareemayay cabsi season 3 Faisal oo qorshe bilaabaya dhanka kale Faisal wuxuu la hadlayay qof taleefon Faisal waxa rabaa in wax walba si degdeg ah loo dhameeyo qofka kale ma hubtaa Faisal ma doonayo qof kale inuu soo dhexgalo wuxuu ahaa nin aan jeclayn inuu wax lumiyo season 4 qoyska oo isku imaanaya guriga Sahra waxa isugu yimid qoyska oo dhan hooyo adeer iyo dadka kale hooyo Sahra waxaan maqlnay inaad wali la xiriirto wiilkaas Sahra way naxday yaa idin sheegay adeer arintaas muhiim ma aha jawaab noo sheeg season 5 Sahra oo la cadaadinayo Sahra anigu waxaan rabaa inaan go'aankayga aniga qaato qolka ayaa aamusay adeer cod adag adiga ma go'aamin kartid mustaqbalkaaga Sahra qalbigeeda waa uu gariiray season 6 xaalad kulul hooyo qoyskaaga ma diidi kartid Sahra laakiin qalbigayga adeer qalbigaaga ha ka hor istaagin sharafteena ilmo ayaa Sahra ka qubanaya season 7 Cabdiraxmaan oo imaanaya Cabdiraxmaan wuxuu go'aansaday inuu si toos ah u yimaado guriga Sahra markuu gaaray wuxuu arkay dad badan oo guriga jooga wuxuu dareemay in wax weyn socdaan season 8 isku dhaca tooska ah Cabdiraxmaan wuxuu isku dayay inuu gudaha galo laakiin adeerkii Sahra ayaa hortiisa istaagay adeer adiga yaa ku soo diray Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan la hadlo Sahra adeer ma jirto wax aad ka wada hadashaan
ahayn Sahra oo aragta Cabdiraxmaan. Sahra ayaa ka soo baxday gudaha markay aragtay Cabdiraxmaan. Indhaheedu ilmo ayaa ka buuxay. Cabdiraxmaan, Sahra waan ku jeclahay oo ma joojin doono. Qoyska ayaa xanaaqay. Season 10 qoyska oo si cad u diiday. Adeer ma aqbalayno xiriirkan. Hooyo Sahra dooro hadda. Qolka ayaa noqday mid culus. Sahra qalbigeedu wuxuu ku jiray dagaal. Season 11 go'aan meel gaar ah. Sahra iyadoo ilmeynaysa ayay tiri, fadlan isiiya waqti yar. Laakiin adeerku wuxuu yiri, waqtigu waa dhammaaday. Cabdiraxmaan wuxuu eegay Sahra. Ha iga tagin ayuu si hoose u yiri. Season 12 oo ah qaybta ugu dambeysa ee qaybta 6aad. Sahra waxay istaagtay dhexda qoyska iyo Cabdiraxmaan. Hal dhinac jacayl, hal dhinac qoys. Ilbiriqsi dheer kadib waxay madaxa hoos u dhigtay wayna aamustay. Dhammaad xalqada 6aad. qaybta xigta. Sahra go'aan ma qaadan doontaa? Cabdiraxmaan ma sii dagaalami doonaa? Faysal muxuu sameyn doonaa? Xalqada 7 insha Allah ayaad ku daawan doontaan. Fadlan share, like, comment waa xagiina. Mar walibana intaas oo kaliya ayaan idinka codsanaa. Sheekada xiisa ayay dib ka yeelan doontaan. La socda qaybaha xiga. Mahadsanidin akhyaarteena qiimaha iyo qadarinta naga mudano.